waxaa salaantaada u diyaara cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne ku soo dhawow madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo wafdi hogaaminayo ayaa u ambabaxay dalka Kuwait waxaana ujeedada safarka madaxweynaha ka warbixiyay afayeenka madaxtooyada Cabdiraxmaan Cilmi Faahiye Shamax in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo wafdi hogaaminaya ay maanta u ambabaxi doonaan boqortooyada Kuwait boqoshaas waxay ka dambeysay martiqaad rasmi ah oo madaxweynuhu uu ka helay boqorka dalka Kuwait isagii wafdigiisuna boqosho ku yimaadaan boqortooyada Kuwait ayaa ujeedadiisu ahayd oo martiqaadkaasi casuumadaasi rasmiga ah ee madaxweynuhu ka helay boqortooyada Kuwait ayaa socdaalka ujeedadiisu ay tahay insha Allahna saacadaha inagu soo foole ayuu madaxweynaha iyo wafdigiisu ay u ambabaxi doonaan boqortooyada dalka Kuwait isagoo uu heliyo madaxweynaha wafdi la socda oo ay ka mid yihiin marwada madaxweynaha Aamine Sheekh Maxamuud Jirde wasiirka wasaaradda madaxtooyada mudane Maxamuud Xaashi Cabdi maarayaha dekedda caalamiga ee Berbera injineer Cali Xorxor iyo xogayaha gaarka ah ee madaxweynaha Mr. Ali Ahmed Ali Soomaaliland iyo Kuwait ayaa sanadihii u dambeeyay lahaa xiriir iskaashi iyadoo dawladda Kuwaitna ay gacan ka geysatay dib u dhiska iyo casriyeynta garoomada diyaaradaha magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera Khalid Ibrahim Cabdi Somali Channel Hargeysa